بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ما بعد خير الله أنا وافجيه waxaan filayaa in kelimadaydu waa gunaanad barnaamijkeediisa muhiimada lahayd culimada ka soo hadashay qaybtan wax ka dheer rabo waa inaynu wada garanayno is-xasuusina keliya way marka laga hadlo dhibta uu leeyahay ama shakhsiga ha ku yeesho ama ummadda iyo bulshada ha ku yeesho waxaan filayaa wax badanna wayaarag iyo goobjoog baan uga soo ahayn wax badan oo wacdi iyo nusuus iyo kitaabka iyo sunnadaana waxna waa akhrin waxna waa dhagaysanay marka intii uma rabaa si kooban inaan ereya kooban ka iraahdoon aan idinku dheerayn xadgudubku waa qayb kamida ama nooc kamida dulmiga dulmigu marna qofku isagaa isdulmiyo dembi iyo macaasi uu ilaahay ka galaa marna dad kale u dulmiyaa ama eray ha ku dulmiyo ama adin ha ku dulmiyo marka xadgudubku waxaan filaya ereygeed marka la yihahdo marka wax u horeeya macnaha soo degdegaya oo qofku khalqiga ilaahay si xaq darra ay lagu xadgudbo oo wax ka gaadho ama eray ha ka gaadho ama adin ha ka gaadho naf iyo maal iyo waxay noqoto intay dooni ha noqotay ama intay dooni ha leekaato dulmigaa faraha badan ama xadgudubka iyo tacadiga dadku isku sameynayaan ee faraha badan ilaahi subxaanahu watacaala qur-aanka iyo sunnada waa ku xaaraantinimeeyey waxaan u maraynayaa waa qofka waxyaabaha qof kastoo muslima uu garanayo xaaraantinimada iyo xumaanteeduna islaamnimada keliya kuma xidhneen oo waxa aadamuhu ay ka midaysan yihiin in dulmiga iyo gardarrada xadgudubka ee dadka lagu xadgudbayay ay xun tahay arrin aan la aqbali karin ay tahay maxaa xadguduba ama dulmiga markaa dib ha la iskaga qabsado oo laga yaabo qofka inuu isxaq iyo gar siinayo way dhici kartaa laakiin wixii la isla qiro dulmi iyo xadgudub inuu yahay waxyaala iyo ku tacadi dad lagu tacadiyana uu yahay aadamaha bashariyadoo dhan baa isku waafaqsan in waxaa laga hortago dabcan in sameynaysana mar walba way jirayaan ilahi subxaana watacaala marar badan buu qur-aanka kusoo hadal qaaday ama lagu soo xusay xadgudubka noocana dadka muslimka gaar ahaan markii loo xusuusinaya ilahi wuxuu yihi walaa taxsabana allaha gaafilan cama yacmalu alظaalimuun inamaa yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi alabsaar muطiciina muqnicii ru'uusihim laa yartadu ilayhim طarfuhum waafidathum hawa ha u malaynina wixii dulmiya xadgudub ee la sameynayo allah inuu ka warlaayahay uusan ka xog warhaynin ama uu si fudud ku dhaafaya ha u malaynina qofna yaanu ku tashan qofnana yaanu ku talagelin in arrinta ilaahay waa moog yahay ama la yska daynayo lagu cafinayo yuusan u malaynin haddii adduunka ciqaabku kusoo degdegi waayo maalin aakhare iyo qiyaamaa la isla sugayaa inamaa yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fiihi alabsaar maalin indhuhu kor wada taagmayaan oo la wada qaawan yahay oo la argagaxsan yahay maalinkaasaa jazaha abaalkeeda loo dibdhigayaa oo dabcan haddaan adduunkaba loogu soo dedejinin qeyb ka mid a saa darteed haddii adduunka qofku dhibta dulmiga uu geysanayo iyo xadgudubka uu ku arki waayo waa lama horaan aakhira ku arki lidalika nabigan yiri alay sla slam xadidka anas ibni malik dulmigu waa saddex mid ilaahay ma dhaafo oo waa shirki midna ilaahay uu dhaafaa waa qofka iyo rabbigii waxa u dhexeeyo isaga cafiyaa midna ilaahay ciqaabteeda iyo xisaabtankeeda marna ma daayo waa midii dulmiga khalqiga aada dulmido ood ku xadgudubto iyagaa dana kaa cafiyin ilaahay kaa cafin maayo xisaabteeda un baa lagaa goyn hadba qadarkeedu intay dhalato lidaliku nabigeena alayh salaam ku tilmaamay qofka caydha ee saboolka markuu saxaabada weydiiyey waayo waxay dhaheen qofkaan shilin ka dhicin oo wax isku furta lahayn wey wuxuu yihi saas maaha waa qof hataa qof caasi ahoo waa dulmi badan yahay laakiin ma aha qof cibaadaadkii dayacay maaha qiyaamadu iman doonaa buur salaada buur soona buur sadaqa ajir waaweyn oo u sameeyo la iman laakiin wuu dulmi iyo xadgudub badnaa qiyaamada saf baa la soo gelayaa marka kan dhiig buu ka daadiyey kan xooluu ka dhacay kan wuu caayay kan wuu dharbaaxay kan waxaanuu yeelay
cibaadaadkiisaa la qaybsan marka cibaadadii baa dhammaan markay dhammaata safkii weli waa dheeriya dembigii baa lagu tubi kaasaa la isaga fududayn kadib naartaa lagu tuuri qofka intaa muxuu ku mutay cadaabka camalkiisiina cunay wixii uu sameeyey walidaalika Soomaalida waxaan dhahnaa qofka markii qof wax ka sheegayo dulmina aragno uu beerfalayaa baan dhahnaa uu beerfalayaa ana camal uusan kasban oo janno uusan ku galan camalkiisa yaa qofka dulmiga uu ka galay camal looga soo qaadi doono janno ku galaya sadarteed beerfal way waxay Soomaalida ugu magacaawdo marka walaa taxsabanna allaha ghafiran amma ya'malu adh-dhalimun damirka qofka muslimka waxay ku reebaysaa waxaad samaynayso waa lagugu daba joogaa ma qarsoona meelaad ku baxsata male korna cir sama kaa xidhay hoosna dhul baa kaa xidhay labadooda ka dhex bixi maysa labadan rabbi baa lahoo maamulo hadduusan aakhara kuu dibdhigin adduunku kuu qabanaya ilaahi subxana wataala waxaa kaloo qur-aanku inagu baray waa laga yaabaa qofku dulmi badan inuu sameeyo qabiilku dulmi badan sameeyaan qowmiyaddu dulmi badan samayso muddana ay iska sii baraaraan oo iska sii joogaan oo sii lahaadaan laakiin aakhare intaan la gaarin waxa ugu badan ee adduunka ciqaabtiisa ilaahay kusoo dedejiya nabigu wuxuu sheegay waa 3 waa 2 qaraabo goys raxim goys Soomaalida waxay dhahaan waa reeran naareed طبعا الكل Soomaalida waa xadiido la yadkhulu aljannata qaati'un xadiidkii haaway qaraabo goys raxim goys janna ma galo waxa la taa cuqubadeedu adduunka ku soo degdegtaa tan labaad ee adduunka cuqubadoodu iyadoo aakharana dambigii lagu kaydiyay waan dambi dhaaf aynan ahayn soo degdegtana waa baqyiga iyo dulmiga khalqiga leh dulmido waxa ugu badan ee adduunka cuqubadiisa ku soo degdegtaay وهذا هي خلقك على ظلميه ولذلك قفك مظلوم كلا ظلميه الواحد قدبي إلهي يريسك إلاليه وهي إلهي استقبل يديس حجابه ما دحيه وأقبل إياه وحن إليه لأنصرنك ولو بعد حين وكو قرقارة يا وقت لها كسوريك حتى هدي مدلة ودب لغو وحن فلا يا دادك سيد اللوغة قويي تتبادن الظلم السمعين ليه وحوقي أود إسبيلي سيدا لوغا قوي إنتان واياها النولين وحبالا ما نسوه جوغني نمكي الدولة دا هايستي هيدا ما دا هايستي دادك قمادي تشيري شعوب تحوقا كو هايستي إمسا الدولة انتي لا قبتي شعب فرماران انتي قبتين سيد لو بوليني أما أفكا مدح اللوغا لدعايي أما حبان مدح اللوغا لدعايي إمسا الدولة كو عركت رقا سيدا ود بدن dadka ciqaabi jiray loona galay ninka isbatooriga Afrikaanka ah Samuel Doe wada xasuusataa maanu maleyn intii la qabtay isagoo nool gacantan la gooyay tan la gooyay aakhirinta la gaarin in badan baa dulmigii adduunka dulligiisii iyo ciqaabtiisii ku aragtay aakhirana maca ma yuakhiruhu Allah lahu ilaahay iyadoo ciqaabka loo dib dhigayo baa adduunkana laga gooynay ama shakhsi ha noqdo ama bulsho iyo qowmiyad ha noqdaan umamka ilaahay uu halaagi jiray dulmi baa loo halaagay sadarteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan ka digay nabiguna in badan ka digay xadgudubka khalqiga iyo aadamaha iyo muslim iyo gaalba lagu xadgudbo qofna in la dulmiyo ma banaana qofku wixii xaq sharci loogu leeyahay in la mariyo waxaa labaadu ilaahay looga digay dulmiga in la isugu kaalmeeyo halkaa innaga waa laga yaabaa wax badan inaga soo raaca markay reer iyo qabiil iyo ilma adeer iyo deegaan iyo timaado waa laga yaabaa halkan in dulmiga qof galay dee isagaa cuquubadiisii iska leh haddaynaan inagu dayicin oo qaban karna labadaba ilaahay waa inooga digay qof daalim ah oo uma dulminayo oo xadgudbaya inaan la safanno oon hel iyo garab u noqdan waa inooga digay oo wuxuu yihi walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar qodadka dulmiga samaynaya dad u garbiyo u hiilan noqda ha noqonina qof dulmi qaba samaynaya inaad ka qabato dadka haddaad awoodo inaad banaanka ka marto haddaadan awoodu lahayn maahane dulmi kalkaal ha noqonina dulmiga qofka sameeya iyo qofka kalkaaliya isku mid wey
si kalena waa laynoo yiri walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan, dembi iyo xadgudub garab ha isugu noqonina. marka qofku inuu ugu kaalmeeyo qaraabadiisii, tolkiisii, xisbigiisii, ururkiisii, dulmi ugu kaalmeeya lama ogola. xataa muslim gaal dulminaya inaa muslim garab ugu noqoto lama ogola. waa cadaaladii laga tago. ilahi subxaana watacaala in dulmi la sameeyo sabab badan baa qofka u kalifi kara. qofkan wuu tabar daran yahay inaad is leedahay, qofka dan iyo maslaxad baad ku qabtaa inaad is leedahay, qofkan xigti iyo dhalashuu ku xigaa inaad is leedahay. intaba qur-aanka lagu sheegay. ilahay markuu yihi kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa lilahi walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni waalaqrabiina in yakun haniyan aw faqiiran fallahu awlaa bihima. xooluu leeyahay ha ugu helinina, waxoogay dhaqaalay dhacdhabaad ka heli. waa faqiir oo kani waa miskiin tabar daran, isagoo daaluna ha ugu helinina, ha u weexanina. qaraabiya aabbiiyo hooyiya walaaliyo ilmaha dhashay iyo ha ugu heelanina. naftaadiiyo masaalixay leedahay iyo danteeda ha ugu helinin lafteeda dulmi. saa darteed dulmi kalkaal ha noqonin. adigu waxa dulmi samaynin. xadiis lqudsiga baa yiri yaa cibaadi innii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu. warays dulmiina. markii adiga lagaa xaaraantinimeeyey eedan samaynaynin si toosa, si dadban oo dulmi kalkaalan ha u samaynin. maalin kasta waxaa lagu weydiinayaa dee ree hebel baan isaynaaye dabka hoosta haddaan ka xaabeeyo oon laadka hoy ree hebel gadaal kaga dhufto, qabyaaladda ama magaca qabiil ha noqoto, dee ama qabyaaladan inagu cusub ee magaca gobol laga dhigay ha noqoto. ilaan gobolladan hadda soomaaliya maamul goboleedyadu laanlaanku haddaan si kale u akrino waa qabiil qabiil. inuun raacday ay ka fursan weydeen maahane kale xero oodasho weye. ama intuu ootay ha noqoto ama intuu rabee ku dooday inuu soo ooto lafteeda un raad qabiil baa la raacayaa. xiisadii qabiilka kale inaga yardegtay baa tan kale shaatiga loo xiray. markaasaa dadka xamaasadda boqolka maraysa. nuxurku muxuu yahay? laba walaalo oo muslimo darisaa islaynaya. waa dulmi kalkaal dadkii. kuwaa ma dagaalamo, meeshana ma tago, xoolana ma bixiyo, laakiin xadgudubkaa banaanku ka difaaca. idaacaduhu ka hadla, fadhi ku dirirku ka dooda. nin baan intaa samaynin oo ka yar xishooda oo wax iskula hadha, laakiin hoosta iska cuncuna. maxaa la baasha qabyaaladu waa scratch cardka ma aragteen? telefoonka safaricomka ma aragteen? nimay kun ugu jirta iyo nimay please call me ugu jirta ma arag, oo rasiidkii ka dhamaaday oo afartii xabee please call ma ay ugu jirto. nin balba in bay kaga jirtaayo sidaa fuyuu isugu daaran yahay. inta badan dadka waa iska dabiici oo bulshooyinkan qabaa'ilkiihi xilliga nabiga saxaabada la joogta calayhi salaatu wasalaam marmarka qaarkood markii meel laga yardaaro ay yar kici jireen, laakiin haddana waxyigaa sharciga qaban jiray. waa laga yaaba kacdoonkaa marmar inuu kugu jiro. waxaa la yidhi ninka inoogu roon baa wuxuu yidhahdaa reerkoodii reer kale markay islaayaan kollaba hadday gelayaan bay si fiican wax isaga celiyaan, hoostuu ka yar jeclaada, iyagona wax garaacaan, waxlaad kala yardaalaan. markay sameeyaanna hoostuu ka yar farxaa. dadka ninka ugu roon baa intaa ka aga dhow baa la yidhaahdaa. marka baalka iskaraajkaa inugu wada jira illaa man raximah llahu maani. dulmigu dulmi kalkaal inaad noqoto haddii aad taa ka badbaado, tallaabo lagaad baa xadgudubka waajibo inaga saaran oo inoo yaalla. xadgudub iyo dulmi aad wax ka qaban karto inaadan fiirsanin. haddii kale eedaysanaad tahay, ciqaabta imanaysana waxbaad ka geli. ilahi wuxu uhi wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa. gaar kuma noqon doona cadaab ka yimaada qoladaa wax samaysay, gaar kuma noqon kara. inamada isbaarada samaysanaya ee ummadda ku xadgudbaya ee subabaawaga intay noqdaan dadka mindiyaha gelinaya, haddaad awood leedood wax ka qaban karto, ama keligaa noqo ama abaabul ummadii erey lagaa maqlaya ha noqotee, dulmigaa iyo xadgudubkaa ka hortag buu u baahan yahay.
ha ugu danaynin dadka wax la yeelaya ha ugu danaynin keliya qur-aanku wuxuuna barayaa marka hawshaa ka shaqaynaysa ma aha macnaheedu qofkaa la tooreeyey iyo qofkaa la baadhay inaad u danaynayso adaa isbadbaadinaya cadaabkii yimaada cagtuu ku marin xadiidkii zaynab binti jaxshinna nabigu calayh isalaatu wasalaam markuu arrimahaasoo kale ka sheekeeyey waxay tii rasuulku ilahi u kaadi annuhlaku wa fiina asaalixuun manala wada halaagaya annagoo dadka qaarkii ay wanaagsan yihiin markaasuu yihi nacam idaa kathura alkhabath inta xun ee xadgudub yeelumkii haddaad u badataan cagtaa lidin waarin uma yubcatuuna calaa niyaati yalba aakhare waxaan lagu soo saaray waxbaaba lagala xisaabtami ilah wuxuu naga sheekay tan waa qaacida gud wattaquu fitnatan dhacday oo tusaale ahna waa layna siiyey reer bani israa'iil markii sabtida ha ugaadhsanina la yidhi qolaa ugaadhsatay qolana indhahay ka fiiriyeen qolana war ka daayay dheheen kuwa indhaha ka fiirinayay baa yidhi war nimankan kolle waxay ka yeeli maayaane lima taciduuna qawman illaahu muhlikuhum in cadaab ka dheglanaya way ogyihiin laakiin waxay u haysteen hadday banaanka iska aamusaan iyagana waxba soo gaadhaynin ilaahay kadib qowgii dembiga sameeyey in la halaagay waa la sheegay kuwii ka daaya yidhi inay badbaadeenna waa la sheegay kuwii aamusayna waa laga aamusay laakiin cadaabkii soo degay inay badbaadeen waxaa laynoo sheegay keliya kuwii ka daaya yidhi ka daayadu marka iyo wax ka qabadku iyo wixii aan ka qaban karno innaga idan inoo tahay dembi baan kaga badbaadaynaa cadaabna waan kaga badbaadaynaa iyo cuqubada ka dhalata soomaalida waxay dhahdeen dabku munaafiq shilay yaa mu'min ku gubtaa nabiguna wuxuu ina baray dadkaa waxay samaynayaan ciqaabka ka dhalan doona dadkaa noloshan doonta wada saaranaana qolada hoose ee duleelinaysa haddaan laga qaban way wada degi baasho soomaalidana waxay dhihi jireen markay waxyaabuhu dhaqan xumo galaan ceebta ina hebel dhiil muggii baan ku lehay uu sameeyo ceebtuu sameeyey reer hebel unbaa sameeyey ama deegaan hebel unbaa sameeyey ama shirkad hebluun baa samaysay ama urur iyo xisbi hebel baa sameeyey ceebtii ka timaada waxbaad ku leedahay marka tallaabada koobaad waa dulmi inaadan samayn adugu laba waa inaadan kalkaalin waa dembi labaad saddex adoo wax ka qaban kara waa inaadan dhaha ka fiirsanin xadgudubku saddexdaaba haddaad intaa kari weydo waxba ka qaban weydo tallaabo afraad baa jirta qalbiga ha ka jeclaanin xataa qalbiga waa la isxisaabin xadiidka nabiga wuxuu alayh salatu salaam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisani fain lam yastatic fabiqalbihi ogoada af iyo adin la isagagama hadhin qalbigii baa la iskula xisaabtamay qalbiga ha ka jeclaanin intaa wax ka dambeeya ma jiraa oo qalbiga inaana ka diidina maya riwaaya ahayd walaysa waraaa dalika xabatu khardalin min iimaanin in yar oo iimaana halkaa kama dambaysa qalbi ka naca qalbiga haddaad ka jeclaato wax yaroo iimaana ma dambeeyo ma ujeedaa iimaankaaga islaamnimada iyo khatarta halka ay marayso marka intaa wixii ka dambeeya qalbiga haddaad ka nacdo intaana taagtaadu noqoto laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha intaa kadib waxaan kusoo gabagabaynayaa dhowr arrimoodba way leedahay waxyaaba badan bay leedahay iyo dhibaatooyin badan cuquubadaa degaysa iyo halaagaa wuu leeyahay dulmiga iyo xadgudubku kanaan la qabaninna ummadda dhan wuu wada saamayn aayaadkeedana waa kaynu soo sheegnayo umamka saaman baa loo halaagi jiray waxaa labaada uu leeyahay walaalo isnaca oo haddana taag dareeya wamaa tafaraquu ilaa min bacdi maa jaaahum alcilmu bagyan baynahum xadgudub iyo dulmi baa kala geeyey markii la isdulmiyo oo la isnaco oo la isku xadgudbaayey walaaltinimadii iyo wadajirkii baa lumaya isku duubnaantii iyo awooddii ay lahayd baa lumaysa waa la taag beelayaa fatafshaluu watadhaba riixukum baa la noqonayaa soomaali waagay isku duubnayd cidima hawaysanaynin haddana nin baa laga sheegay soomaaliyeed baa reerkoodii jabay reerihii hareeraha ka ahaa oo ka tira badnaa baa ku kacay markuu arkay buu intay isugu yeedheen reerihii oo dhan bay shiriyeen oo ay gogol u sameeyeen markaasu wuxuu yidhi madaxyaalow waad naga adkaateeran waan jabna intaa wixii ka badan hanalaga iska daayo yaa nala gumaynin
mid baa istaago annagu farahan aan ka qaadno waan idin deynay buuri markaasuu adigu yaad ahayd ciddeed ahayd isu kay sheeg reer hebel baa lahay buuri qolasho uusan qaylsanaynin bay ahaayeen intuu raggii fiiri yidhi idinama naga adkaydan idinama naga adkaydan buuri wuxuu ujeedaa halkaan gaadhnay kuwana idinkaagihin ma lahayn sina cabdilxasanna waxaa laga sheegaa waagii dee uu xooga badnaa qolyo wax ka tirsanayay waagii dambe imay iyo baadiyaha uu tegay baa niman baa ku qamaamay baa layidhi wuxuu yihi war waayo waa ree hebel baa layidhi gablan adduuna buuri anaa ree hebel hadda laga qabqabanaya anaa ree hebel hadda laga qabqabanaya gablan adduun buuri adduun waa sidaas soomaaliya hadda waxaan noqonay cid kastoo timaada inaan dhahnay idinama naga adkaydeen cid kasta inay nagu qamaamayso wada jirkuna macnahaasuu lahaa marka innaga isnacnay isku xadgudubnay isdulminay nin dhaalim iyo dhaalim kalkaal iyo mid indha ka fiirsadaan noqono aan u badanay ilaa man raximahullah dee fatabshalu watadhaba riixukum raadka inagaga tagtay wakaan qaylina bad baa la qaatay xuduud baa la qaatay waa nala farageliyey waa naloo yeedhiyey ri walba shiralka isdhigtay baa lagu gowracaa waxaa saddexaad oo ka dhalata oo taa lamida markii la tabar beelo xigta amaba haddaan la tabar beelinba in daalun ilaahay ku sallido ummaddan dadka madaxda u noqonaya dibad kama yimaadaan waa kuwo ay dhaleen oo guryahooda kusoo barbaaray wixii dulmiga iyo dhaqan xumada guryaheenna kusoo ababay unbaa odayaal iyo madax inoo noqon dee midhahan beeranay un baynu goosano ti ilaah yirun bay noqon wakadalika nuwallii bacda aalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun aalimiinta aalimiin baanu dul saaraa dembigay galeen dartii markuu aabbuhu ku faana dulmiga uu qoys